Maanta waxaan idiin hayaa sheeko xiiso leh, bakaylo yar oo caqli badan, iyo libaax xoog weyn oo khatar badan. Maxaa kala qabsaday? Waxaa jiray kayn aad u qurux badan oo leh geedo dhaadheer, ubaxyo midabo kala duwan leh, iyo xayawaano si nabad ah ugu wada noolaa. Subax kasta shimbiruhu waxay ku dhawaaqi jireen cod qurxoon, neecaw macaan oo fududna waxay dhex mari jirtay caleemaha geedaha. Laakiin nabadii iyo xasilloonidii kaynta way burburtay. Waxaa yimid libaax weyn oo aad u xoog badan oo noqday boqorka kaynta. Markii hore xayawaanku way ixtiraami jireen, laakiin waqti yar kadib libaaxii wuxuu bilaabay inuu cuno xayawaan kasta oo uu arko oo kaynta ku nool. Cabsi ayaa ku faaftay kaynta oo dhan. Eerooyinka, daanyeerada iyo xitaa shimbirihii dhammaantood waxay ku noolaayeen cabsi joogto ah. Xayawaan walba wuxuu ka baqayay inuu noolo kan xiga ee libaaxu cuni doono. Maalin maalmaha ka mid ah, xayawaankii kaynta ayaa isugu yimid shir weyn. Mid kasta wuxuu sheegay dhibka uu qabo. Deeradii oo ilmeynaysa ayaa tidhi, waxaynu weynay saaxiibo badan. Daanyeerkiina wuxuu isna yidhi, carruurteenna ma badbaadsanaa. Markaas ayaa si lama filaan ah bakaylo yar oo degan ka dhex istaagay xayawaankii. Bakaylaha ma ahayn mid weyn, mana ahayn mid xoog badan, laakiin wuxuu lahaa caqli iyo xeelad. Wuxuu yidhi, ha ka welwelina, aniga ayaa halinaya dhibka inaga haysta libaaxa. Xayawaankii oo yaaban ayaa yidhi, adiga sidee bakaylo yar uga adkaan karaa libaax weyn? Bakaylihii si degan ayuu u qoslay, wuxuuna yidhi, xoog keliya guul ma keeno, mararka qaar caqliga ayaa ka xoog badan awoodda. Maalintii xigtay, bakaylihii wuxuu si toos ah ugu tegay libaaxii. Libaaxii markuu arkay bakaylaha wuxuu yidhi isagoo xanaaqsan, maxaad halkan u timid bakaylaha yarow, inaan ku cuno miyaad rabtaa? Bakaylihii ma uusan baqin, wuxuu si kalsooni leh u yidhi, maya boqorow, waxaan kuu keenay war muhiim ah. Libaaxii ayaa istaagay, wuxuuna yidhi, war muxuu yahay warkaad sheegayso? Bakaylihii wuxuu yidhi, waxaa jira libaax kale oo weyn oo sheeganaya inuu yahay boqorka dhabta ah ee kayntan. Libaaxii aad buu u xanaaqay. Maxaa tidhi, libaax kale ah, halkee ayuu joogaa? Ayuu yidhi. Bakaylihii wuxuu yidhi, isoo raac, waan ku tusayaa meesha uu joogee. Bakaylihii wuxuu geeyey libaaxii meel ku yaalay ceel weyn oo qoto dheer. Wuxuu ku yidhi, halkaas ayuu ku jiraa libaaxu. Libaaxii wuxuu eegay gudaha ceelka, wuxuu arkay sawirkiisa oo ka muuqda biyaha. Laakiin libaaxii ma fahmin inuu yahay sawirkiisa. Wuxuu u maleeyey inuu yahay libaax kale. Isaga oo xanaaqsan ayuu kaydiyey, ka bax kayntan, aniga ayaa boqor ah. Sawirkiisii biyaha ku jirayna wuxuu u muuqday inuu isagaba kaylinayo. Taas waxay sii kedisay xanaaqii libaaxa. Isaga oo aan fekerin ayuu si degdeg ah ugu booday ceelkii. Biyihii ayaana kor u firtay. Libaaxii wuxuu ku dhacay ceelka, mana awoodin inuu ka soo baxo. Bakaylihii si degan ayuu u istaagay, wuxuuna yidhi, qof aan fekerin qalad ayuu sameeyaa. Markii bakaylihii ku noqday kaynta, xayawaankii oo dhan ayaa sugayay. Markuu u sheegay wixii dhacay, dhammaan way farxeen. Shimbirihii way dhawaaqeen, daanyeeradii way boodboodeen, deeradii iyo xayawaankii oo dhanna way qosleen. Kayntii waxay mar kale noqotay meel nabad ah oo farxad leh. Bakaylihii yaraana wuxuu noqday geesi weyn. Halkaas ayay ku dhammaatay carruuray sheekadii bakaylihii xeelada badnaa iyo libaaxii xoogga weynaa. Ee hooyo iyo aabe, carruurtaada channelka subscribe u saar si ay u helaan sheekooyin xiiso leh iyo casharo kale. Mahadsanidin.